السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaad waa walaashin Umu Mansuur. waxaan idin wadaa video ay gabdho badan isoo weydiiyeen dhowr mar su'aalo iga soo weydiiyeen Umu Mansuur ee ka soo hadal videogaas ayaan rabaa caawa inaan ka hadlo. soo dhawaada gambarkiina soo qaadatiin bilaa walwal waa idin soo dhaweynayaa. waxaan aad iyo aad u rajeynayaa kulligeen inaa caafimaad qabtiin. gabdho fara badan ayaa YouTube channelkayga kusoo biiray. dhammaantiin waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada YouTube-kayga Umu Mansuur. gabdhihii hore ii la joogana dhammaantiin waxaan idin leeyahay waa ku mahadsantihiin la jooggiina iyo garab istaaggiina. soo dhawaada YouTube channelkan waxaa looga hadlaa habka maaragtay wax loo save gareeyo, habka budgetka loo sameysto. waxaan ku dhahay dhammaanteen maaragtay isku hadaf ayaan nahay, isku hiigsi ayaan nahay, isku meel ayaan u wada soconaa. kulligeen doonta waan wada saarana. gabar walba meel ayay kasoo koraysaa, magaalo ayay kasoo koraysaa, laakiin kulligeen dad waxaan nahay isku wada hadafa oo isku wada halgan ah. YouTube-kan waxaan kusoo gudbiyaa fiidiyoyaasha inta badan looga hadlo see wax loo dhaqaalaystaa, sidee maalgashi loo sameeyaa, maxay hooyada maaragtay ay dhigi kartaa, maxaysan dhigi karinin, sidee wax loo maamulaa, because adduunyada wax walba maamul ayay u baahan yihiin. shayga ugu adag oo la maamulo maanta dunida aan joognana waa lacag. sababta lacagta maamul aad iyo aad u ballaaran oo muhiim u ayay u baahanta. ogaaw lacagtaada haddaadan si fiican u maamulin adiga maaragta jeebkaada ayay ka jeeban tahay. oo mar walbo maamulkaadu xumaado dhaqaalahaadana wuu xumaanayaa. mar walba waxaa noqonaysaa qof bilaa lacag la-aana, mar walbana qof welwel ku nool. finland ay degan tahay, rabto inay ilmeheeda Afrika geyso, maxay tahay shuruudaha looga baahan yahay, ama waarid labada waarid oo isla joogaan wadankan ayagoo jooga ilmahooda Afrika ma geyn karaan. videogan maanta mawduucaas ayuu ku saabsan yahay. waan ogahay gabdhaha waqti fara badan ayay isoo weydiiyeen, waanan kala soo daahay runta markii laga hadlo, sababta waqti fara badan ayaa kasoo wareegtay. videoga maanta caawa kaas ayuu ku saabsan yahay. gambarkiina soo qaata. soo dhawaada. anyway, aniga sidaa ogtihiinba gabdhahay ogaay way ogyihiin. gabdhahan ogeyn waxaan rabaa waxay dhina u dulmaro wiilkayga curadka ahay oo magaciisa intaba social media aan kusoo galo, oo YouTube channelkayga iyo TikTok-kayga meel walba aan kusoo galo, oo Mansuur ahay ayaa Soomaaliya jooga. wuxuuna joogaa magaalo la dhaho Burco ayuu joogaa. sidaa ogtihiinba 2022 bishii 7 ayuu wadankan ka tegay oo Soomaaliya uu wiilkayga aaday. sidaas darteed gabdho badan ayaa su-aal isoo weydiinayaan oo idhahayaan maadaama adiga ah hore wiilkaada wadankan uga waday, maxaa noogala baahan yahay, ma la wadi karaa, maxay yihiin shuruudaha, waxaasoo dhan rabaan inay ogaadaan. iyo qaar aan ayakoo ogeyn haddana iska kaysoo weydiinayo, oo maadaama Umu Mansuur igu tuhunsan inaan sharciyada aqaano ama aan arrintaas wax badan aan ka ogahay, maadaama aanan kale ugu jawaabi karin, gabdhihiina ay tiradii ka bateen, waxaan go-aansaday inaan video u sameeyo oo si jamaca aan ayaka dhan ugu jawaabo, bikaas hal inaan u jawaabo way igu adag tahay. fadlan waxaan kaa codsanaa YouTube channelkayga haddaa ku cusub tahay subscribe ii saar, commenti ka bixi videoga. commentigaani wax badan ayuu iga caawinayaa. sharena ii dheh, hal qof ama 2 qof u share garay. waa mahadsantahay. haddaa videogayga u dheh aan u guda galo, aniga wiilkayga 6 sano Soomaaliya ayuu ku buuxiyey. sababta bishii 19 ayuu 6 sano buuxinayay. waxauna baxay 1 bishii 7 ayuu baxay. cunug aad u sii yar ayuu ahay, weli ma uusan bilaabin wadankeena iskari waxaa lagu dhaho, ama markii sanadka iskuulka loo diyaarinayo. midda kaleetana ma uusan ii sheeg bil iskuulna maba uusaba gaarinba. sidaa darteed waqti waxaan waday uusan weli waxba process iyo waxaas ku jirin. halka kaliya oo laga caawin jiro wuxuu ahaa ilmaha hadalka kasoo daahay, oo markaas hadalka ayuu bartay sanad 2 sano waqtigaas ka hor 4 sano uu ku bilaabay inuu hadlo. marka processka kaliya u socday wuxuu ahay inay jirto gabar therapy wadankeena lagu dhaho, oo maaragta hadalka ka caawiso, oo xanaanada ama beebikootiga ugu tagto weegi hal mar. weliba sanadkii nala soo siiyey, waxaa nala soo siiyey 2000 waxay noo bilaabatay iyo 2021 noo bilaabatay bishii 11aad, 2022 bishii 7aadna wuu ka tegay. inta sanadkii xataa weli markaas ma aanan dhamaysanin. fasax maadaama iska soo gala 5 bil bis ayuu ii caawisay. anyway, wiilkayga aniga Soomaaliya markaan geeyey maxay ahayd, isla markii waxaan sameeyey waxaan wargeliyey dowladda wadankan oo lacagta caruurta siiso, maadaama uu cunug kastoo wadankan ku dhashay ilaa 18 sano ka gaaro
uu xaq u leeyahay lacag inuu qaato lacagtii ayaan iska xiray si uu maaragtay loo ogaado. waxaan kaloo sameeyey wadankeena meesha masteratiga la dhaho ayaan ku qoray inuu wadanka ka guuray oo Soomaaliya uu u guuray isla markiiba waa sheegay. inta badan wadankeena waxay ku leeyihiin ilmaha 6 bilood gudahooda hadaa ku soo celinaysid lacagta caruurta waa ku qaadan kartaa, laakiin ani maadaama ogaay inuusan soo noqonaynin ama hadduu xataa soo noqdo aanan si saxa u haynin 6 bil gudaheed inuu ku imaan karo, waxaan ku dhahay ayada dhan inaan iska xiraan rabaa. sababta 6 bilood gudaheeda haddii aad ku soo celisid waxaa lagu leeyahay lacagtii noo soo celi. haddii 6 bil gudahooda aad ku soo celisid lacagtii noo soo celi laguma dhaha. laakiin waxaan ka wadaa haddii 6 bilood ay kula dhaafto dowladdu waxay kaa codsanay inaad lacagta u soo celisid. marka waa inaad keentid 5 bil iyo maalmo adi 6 bil ka hor waa inaad keentid warqado iyo waxay kuu soo dirayaan. marka waa intaysan warqadahaas kuu soo dirin inaad keentid ama waqtigay warqadahaas kuu soo diraan ay ku soo gaarto warqadahaas lagu dhaho jawaab lagu soo weydiiyo inaad jawaab u haysid oo cunugii wadanka uu joogo. sidaa darteed ayaa aniga waxaan u dhahay 6 bil ka badan ayuu maqnaanaa. midda kaleeto cunuga markuu wadankan 6 bilood ka maqan yahay wax weyn oo faa'iido uma soo kordhinayso. sababta hadduu xanaano dhigto xanaanadii hafu uga tagaa, hadduu iskuul dhigto iskuulkii 6 bilood ka maqnaanaa. marka badanaa cunuga waxaa fiican hadduu maqnaanayo waalidku inay si fiican uga fekeraan oo ay si maaragtay aad iyo aad taxadar u leh ay uga taxadaraan. sidaas darteed aniga waxaan sameeyey maadaamaan ogaay waxaan ku dhahay 6 bil ka badan oo maqnaana. weli waa xasuustaa maalintii aan ka xiraayay aan u sheegayay meesha maaragtay oo askari maadaama bilaabaya aan u sheegay oo aan wacay qaybta Farxas Kasfatuska oo waxay igu tiri naagta wiilkaada haddaba sanad kadib soo celinaysid waxba faa'iido male. marka waxay igu tiri ma ka fikirtay meequu maqnaana. waxaan ku dhahay waxaan rajeynaa sanad iyo wixii ka badan inuu maqnaado ama sanad kadib aan soo celiyo, sababta waxaan rabay inuu luuqadda af Soomaaliga iyo waxaas uu soo barto. anyway markii horeetana ma ahayn waditaankayga inaan Soomaaliya inuu soo joogo fasax samar ahaan ayuu u aaday. kadibna markaasay nagu dhalatay inuu Soomaaliya joogo. marka waxaan maray wado kasta oo layga rabay inaan maro oo ah kow inaan u sheego Farxas Kasfatuska, 2 inaan lacagtiisa jaro, inaan dhaqaatiirta aan u wargeliyo sababta wiilkayga wuxuu ahaa ilmo maaragtay maadaama lacag hadalka laga caawinayay sanadkaas dhammaadkiisa dhaqtar ayuu lahaa mar kale usoo ogolaanayay qaybta hadalka ka caawiso maadaama dowladda ka dhiibaysay. sidaa darteed marka isla markii wadooyinkii dhan hore ayaan ka qaaday. kadibna waxaan u sheegay baybakootigii ama daycarekii ayaan email u diray wiilkii inaan wadanka ka waday. markii ay saas noqotay wiilkayga 2023 sanadkan hadda sanadkii dhammaaday, weli sanadkii inuu dhammaaday maskaxdayda lama qabsanin. 2023 bishii 8aad ay ahayd inuu iskuul bilaabo maadaama 7 sano gaaray oo wadankeena ilmaha ay 7 sano iskuulka ku bilaabaan. waxaan sameeyey marka email ayaan u diray wasaaradda waxbarashada oo waan u sheegay cunuga wadankii inuu ka maqan yahay. sababta cunuga wadankan hadduu degan yahay waajib waxaa ku ah inuu qayb waxbarto oo iskuul aado. marka maadaama cunugayga joogin waa inaan u wargeliyaa inuu cunugan wadanka ka maqan yahay si ay u ogaadaan inuu cunugan wadanka deganayn. email ayaan u diray. emailkii markaan u diray hayay igu dhahan sida ayay ku ogaadeen. waxaan kaloo sameeyey dhaqtarka ilkaha maadaama 7 sano cunuga markuu gaaro laga rabo dhaqtar ilka inuu tago. asagana waan wacay waxaan ku dhahay cunugaas wadanka uu ka maqan yahay ee jadwalkiina ka saara oo ha ku tashanina inuu cunugaas wadankan ma joogo. sidaa darteed ayakana waan la hadlay waxaan ku dhahay wiilkayga wadanka uu ka maqan yahay ee ogaada. hayay igu dhaheen sidii ay u ogaadeen. ilaahay amarkiis waxaa igu dhacay anoo waxaasoo dhan sameeyey qaybta maaragtay xanaanadii uu dhigan jiray ama daycareki uu dhigan jiray naagtii maaragtay madaxda ka ahayd ayaa email ii soo dirtay oo igu tiri cunugaadii halkuu aaday. kadibna waxaan ku dhahay cunugayga wadanka uu ka maqan yahay. my email ii soo dirtay markii hore ugama jawaabin. markii labaad email aan u diray oo aan ku leeyahay hooyadiis yaabihiis ayaa ka mas-uul ah sidaas u ogaaw. kadibna waxay igu tiri social serviceka ayaan kugu dacweynaa si oo hadadaad camal iigu hadaday. waxaana ku dhahay igu dacweey teleefonkooda ayaan sugayaa. 20kii bishii 11aad ayay ballan ii qabteen oo igu dhaheen fariintaas ayaana soo gaartay
iyo arrimo kale hadda aan rabin inta uga hadlo anyway asaga madaa arrintiis ka hadlaa waxay ugu dhaheen cunugaadi waxaan ku cunugayga Soomaaliya u jira waxay ugu dhaheen wax walba waad samaysay wax walba waan aragnay wadanka inuu ka maqan yahay inuu ka guuray ku qoran tahay sidaas email sii weydiin ila may dhihin cunugana la hadalsii su'aalo kale email sii weydiin just waxaan u sheegay cunug wadanka inuu ka maqan yahay xilligan wada wixii oo dhan way soo arkeen because markii wax bixin loo gudbiyo baaritaan ayay sameeyaan just waa u sheegay waxaan ku cunug wadanka uu ka maqan yahay Soomaaliya u jira inaan soo celiyo igu jirto qorshaha laakiin hadda way noo suurtagali weysay markii waxay ugu dhacday ma laga yaabaa inaad soo celisid aan ku dhacday anaka aanan samarkan soo socda ama kiisa kale waqti adi uu soo noqonayo waan soo celinaynaa su'aalo kale imay weydiin cunuga ila hadalsi imay dhihinin yoo la joogay waxaas imay weydiin sababta anaa u sheegay diisoo la joogaan ku dhahay magaaladu jooga Soomaaliya waxaas oo dhan imaysa weydiinin sababta cunugayga aniga ma uusan ahayn cunug maaragtay ay dowladda process uga socday ama cunugay dowladda qaadatay ama cunugay dowladda igu haysatay ama cunug qalqaali oo maaragtay aan ka waday asagoo dowladda ama social service-ka ay gacanta kula jiraan cunug iska yar uu ahay waan u sheegay waxaan u wadaan ku dhahay inuu Soomaaligiisa soo barto inuu dhaqankiisa soo barto Soomaali markuu tago ka helay eedadiisuna la joogaa sidaas dartiis su'aalo far badan imay soo weydiinin sidaas ayay maaragtay ugu dhaheen cunugaada maadaama wadanka ka maqan mawduuca halkaas ayaan ku soo xireynaa markaad keentid ma ogtaa wadadii aan mari lahayd sida iskuul ugu raadin lahayd sidii maaragtay iskuulka caadiga maadaama la qabsan karo luqadii aqoon waxaan ku dhahay waxaasoo dhan waan aqaanaa sida iskuul ugu raadsan lahay xilliga iskuulka u dalbaay waxaasoo dhan qorshaha way iigu jiraan ku dhahay sababta haddaba wixii layga rabay waan sameeyey wadadiina waan maray markaasna waan ku qasbanahay isla wadadii inaan maro markaa cunugayga wadanka kusoo celiyo kadibna waxay ugu dhaheen waad mahadsan tahay arrintaana meeshaas ayaan kusoo xirnay wax maaragtay sii dabagal ama sii socodana ma lahan cunugaadana adiga ayaa dhalay waaridkana xaq ayay u leeyihiin ilmahooda inay wadanka ka wadaan maadaama ay yihiin ilmo aan dowladda ku haysanin social service-ka aan ka ahayn aan ka diiwaan gashnayn ama aan ku jirin beejkooda iyo waxaas oo kaleeto aniga aabiisna labada wadanka ayaan joognaa sidaas ayay arrintaas kusoo gabagabooday videoga waxaan rabaa haddaa ilaa intaan kusoo gaartay inaad like ii saartid share ay ii saartid videogana amaartay intaan kusoo gabagabeeyo sababta inuu aad u dheeraado ma rabo video labaad ayaan ka sameynayaa shuruudaha la iskaga baahan yahay iyo aniga cunugayga maadaama ka hadlay ilmaha kaleeto oo wadankan laga wadi karo ama aan laga wadi karin videoga xiga intaan ku